شكرا يا ربي شكرا، هديت قلبي شكرا، نورت دربي شكرا، شكرا يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله. الله سبحانه وتعالى بمهدران يوسقناتي الله حق ويا شيء أهل نوعه مهنق دمانتين. kelmadaynan maanta ama barnaamijkeenan dhambaal wuxuu ku saabsan yahay xaqiiqatu shukr, xaqiiqada mahadnaqa aynu u mahadnaqano allah subxaanahu wa tacaala. inaynu ilaahay subxaanahu wa tacaala u mahadnaqno oo aynu ugu mahadnaqno nimcooyinka uu ina siiyey ayaa ah laftirkiisu nimco. ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku arsaaqo oo waafajiyo cidda uu doono oo addoomihiisa ka mid ah. cid la waafajiyo nimcadaasi qiimaha badan ee ah ka mahadnaqa ama awaalka celinta ilaahay markuu gallad iyo nimco ku siiyo ayaa laftirkeedu waxay tahay nimco iyo nasiib iyo dheef aad iyo aad weyn. ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa uu ku tilmaamay isagoo fi suurati saba ka warramaya addoomihiisa in kooban ama in aad iyo aad u yar ay ka yihiin ama ay ka mid yihiin kuwa allah subxaanahu wa tacaala u mahadnaqa. wa qaliilun min cibaadiya shakuur, in kooban ama yar oo ka mid ah addoomihiisa baa ku sifaysan nimcada ah mahadnaqa ilaahay subxaanahu wa tacaala. aljazaau min jinsi alcamal, abaalmarintu hadba waa inta qofku camal uu sameeyo. taasi waxaa ka dhigan hadalka ilaahay subxaanahu wa tacaala fi suurati ibraahim uu ku tilmaamaya ama uu kaga warramaya uu leeyahay لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ومعنى دو يهي وحان معض أي ككردا وأي كفر بدتا مهنق إلهي سبحانه وتعالى. سيدو كلا معتاسوا منطوقة وحي آيات كوادلس مفهوم كايد نوح شيء وحي نمعدو كزوشا. وطبعا آيات قريبتها دمين شيء إن إلهي سبحانه وتعالى لغا كفري oo loo mahadnaqi waayo waa waxyaabaha nimcooyinka ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo galladaha ilaahay subxaanahu wa tacaala uu bixiyo ay ku zuulaan ama ay meesha kaga baxaan. in ilaahay subxaanahu wa tacaala nimco uu ku siiyo ay meesha ka baxdo waxyaabaha sababta u noqdo waxa ka mid ah kufraanu nicma, inuu addoonku u mahadnaqi waayo ilaahay subxaanahu wa tacaala. mahadnaqa ilaahay subxaanahu wa tacaala loo mahadnaqayo ee xaqiiqiga ah waa ka ay ku qumeen ama ay iskugu tegeen ama laga helay 3 rukni ama 3 dhadhaar ama 3 tiir. bal mid kasta waynu ka sheekaynanaa. tiirka koowaad ee laga rabo mar walbana la doonayo in dihnigeenna iyo qalbiyadeenna maskaxdeenna inay mar walba ku soo dhacdo wax ka mid ah in markaad ilaahay u mahadnaqayso in 3 arrimood laga helo. تكوبات والتحدث بهذه النعمة ظاهرة إن النعمة إلهي سبحانه وتعالى وكسيي أتكشى كيسو سموقتا سفرا. هذه إلهي سبحانه وتعالى نعمة وكسيي أتكشى كيس أما أتكورنت. وأما بنعمة ربك فحدث. نعمة إلهي سبحانه وتعالى وكسيي النبي الله إلهي سبحانه وتعالى أذقوا مهنقيا كشى كي ورم. التحدث بهذه النعمة ظاهرا مركلقي ما دينا تهي ركن كميدة أركانتا شكرك أما مهنقوا ليه. سيدوك لو حكمت تهي وحياباه إلهي سبحانه وتعالى وكتر ثرو دنبيدا بدون ساني لهي دنبيقاقو كارد عفو ها جوابت الدمعة دعيد كستوي دونسا بل هدبا وحن سويدين أنها هل كميدة عبادوينك لدونا يقفك مسلمك إنه إلاليو شكرك إلهي سبحانه وتعالى وندم عن كور رمي دونه أيوه الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وإنه شيء كوري
من أكل طعاما فقال الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبي. هذا الحديث صححه إمام الألباني عليه رحمة الله. وحرسولك صلى الله عليه وسلم قفك عنعنته أي لحظة هذا الخصوص الحمد لله وحما هذا أوردن إسكاله أشارك كتشفتوا حدا علمه واستغراقيه جميع المحامد مهنق أوردن وحيسكاله الله سبحانه وتعالى الذي الله سو أطعمني قودي أويسي هذا الطعام انتظر أو رزقينيه أرزاقي من غير حول مني حالة أن حقيقة كأهان إيو ولا قوة أوتونا قفك إنتاي لحظة هي غفر له ما تقدم من ذنبي وحلور لافا ذنبي قفك أسئو قلي استو لما أو سوسمي فالله بقضب باو باهين ندور استاكد وقضبك كوبادة إلهي نمعك سيي نمعادي بعد كم هالنقضي لك نمعك سيي وادي فضلي واد هالنقضي الله سبحانه وتعالى ووحب اعترافتي واد قرتي واد كشاكيسي نمعادي إلهي سبحانه وتعالى وكسيي أبا الله بعد إلهي سبحانه وتعالى وكسيو مركا لقي ما دني معاده وكسيي دنبيغاك بو دافي waxa sidaas oo kala barbar socota la in shakartum la azidannakum wala in kafartum in adabi la shadid kaasi waa rukniga koobaad. rukniga labaad al-i'tiraf biha batinan bi annaha min 'indi Allah 'azza wa jalla in aynu i'tirafno in nimcadani ay ka ahaatay Allah subhanahu wa ta'ala oo maxaanay u ahaanin wama من نعمة فمن الله سيد إلهي سبحانه وتعالى وكنت المامة في سورة النحل إلهي وحده وما بكم من نعمكم سقناتنا ما هيستان قلط إلا هديات هيستان فمن الله إلهي سبحانه وتعالى حقي سات عافماتك يا بحية الله أولاد يا بحية الله أرزاق يا بحية الله علمك يا بحية الله عبادة يا بحية الله بل نمع سوقبه وناك سوقبه فضل سوقبه قلت سوقبه إلا إلهي سبحانه وتعالى يساق بحية عيد بإلهي سببك هكذا هنومك يا بحية الله سبحانه وتعالى تذكر يا طريقة حقا توسية وكهنونية الله سبحانه وتعالى وناك استوى لكسوغ النهي الله سبحانه وتعالى ببحيه. إذن الاعتراف إن قرأنا إنه اعترافنا معدن يوناكا باطنا سي قلبيا والركن الغلبادي كتاقية هي الشكر مهنق إلهي سبحانه وتعالى. طبعا وحين نقول كينيا أما السبب إنه نقنيا أما نقول ريحيا مركا إنه قلبي كاعترافنا إن جوارح دي يحملها إننا النقضان قال حقيقتنا اعترافك قلت إلهي سبحانه وتعالى كسي نمعو كسي قلبي جيبتك حقيقتي المعنى كي اعترافتي إن معدني تهي من عند الله مركز قلبي كقرتي إن إلهي سبحانه وتعالى كسي عندهاجي دقهاجي أفكاجي قعمهاجي لغهاجي حبنهاجي ورنبا وحي ودقاقيان سيدا يحقيقين لهايين وحا قلبي اعترافي وطبعا إن معدني تايفة من الله ركن صدحات إن معدن إلهي سبحانه وتعالى إن السيي لو أديك صدا أما لو عليو إن لغو أطيعو الله منعمكاها أي نسيي ركن غني وركن غاي سوق ودقلين لبدا ركن سيمرك الله يكو كان ديب دعايا حق مركا مسلسل كلا جاي مركا إن نمعادي الله سبحانه وتعالى وكسيي إن هذه الله يقول لواته إن هذه الله يقول عباديته إن هذه الله يكون أطيعه سيدنا ساكون هذه الله يكون عاصي أنا هذه الله كجفجان يدور ركنك أما تير كصدحات كم إذا تيرك وكنت جايه مهنق ولا ليه
waxaan naftayda iyo nafaha walaalahayba aan ku dhiirigelinayaa oo dabcan aan ku boorinayaa in aynu mar walba la nimaadno mahadnaqa ilaahay subxaanahu watacaala. mahadnaqa ilaahay subxaanahu watacaala haddii maanta aynu dhahno hal nimco oo ka mida nimcooyinka ilaahay uu bixiyo, bal u fiirso nimcada aragga oo keliya, bal tii maqalka, hadalkii, urtii, dhadhankii, taabashadii, qabashadii, ku socoshad. allahu akbar, imise nimco baa ilaahay subxaanahu watacaala uuna siiyey, kam wa kam, aad iyo aad bay u fara badan yihin. idan waxaa laga maarmaana walaalayaal in aynu mar walba yaqiinsanaano in nimcooyinku ama nimcadu siday u dhan tahay dhammaanteed waxay ku joogaysaa ay tahay mahadnaqa ilaahay subxaanahu watacaala. nimcada inaga maqalna waxay ku imanaysaa ay tahay mahadnaqa ilaahay subxaanahu watacaala. sidaa darteed ba dadkii hore wanaagsanaa ee salafkii waxay odhan jireen shukrigu wuxuu u yahay sayto ama qabasho nimcada ta joogta, wuxuuna u yahay mid soo ugaadhsada nimcada ta maqan. marka haddaad ilaahay u mahadnaqdo laba faa'iidaad helaysaa. nimcadii aad ilaahay ugu mahadnaqdayna way kuu joogaysaa, tu kaa maqanna way kuu imanaysaa oo ilaahay subxaanahu watacaala waa ku sababaya. mowduucan oo dabcan aynaan xaqiisii wada siin, haddana waxaynu ugu talagalnay barnaamijka usbuucan ama toddobaadkan ee dhambaal inaynu ku soo qaadanno mahadnaqa ilaahay subxaanahu watacaala. aynu mahadnaqanno haddii aynu u baahno ama loo baahdo, dee kutub fara badan bay culimmadu ka qoreen, muxaadaraad fara badanna waa ay ka galeen. laakiin intani waa tambiih iyo baraarujin aynu isku baraarujinayno. waa bal qof walba ama dib ha isugu noqdo, imise nimco ilaahay ku siiyey way fara badan yihiin. wain tacuduu nicmat allahi laa tuxsuuha, imisaad ka mahadnaqday. fadkuruunii adkurkum washkuruu lii walaa takfuruun, ii xusa aan idi xuse oo ii mahadnaqo hayga kufriino ha dafirina nimcooyinkayga. imisebada ilaahay subxaanahu watacaala u mahadnaqday. inahaasaynu kasoo gabagabaynaynaa. wallahu subxaanahu watacaala aclam waaxkam, wabillahi towfiiq. subxaanaka allahuma bixamdik, ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka waatuubu ilayk.